fadlan ha ilaawin inaad subscribe saartid si aad u heshid muuqaaladeedii ugu dambeeyay. Sidoo kale ha ilaawin inaad kambalelka furatid si aad u noqotid qofka ugu horeeya oo hela muuqaaladeyda. Mahadsanid. cashirka hore wuu daba socdaa oo inventory itemska. Markaan hadday waxaa sameynay stocks sameynay, markaan waan ka bedeleynaa isla meesha ii tag inventory items ii tag. kii hore la xiriiraa, laakiin maadaama kii hore meeshan stock item noo ahayd waa ka bedeleynaa tookadan. waxaa igu hormartaa kor waxaa ii dhigtaa rent 001, yacni meeshan waxaa loogu talagalay inaad ku qortid ID oo micno lah. warehouse rents maadaama stock aan iibinayna ma aha, laakiin service aan qabano waa okay. meeshan GL sales account waxaan gashanaynaa rental revenue account line oo ma samaysana, laakiin waa samaysanaynaa new ida 4,400 ii sameey rental revenue. lacagta oo revenue halkaas iga soo xarooro waa ku xisaabsanaa. typekiisana income iga dhig maadaama uu revenue yahay. save ida then close ida. sidoo kale meeshan waxaa ku qoran account oo waxaa laga rabaa oo GL salary, yani account u saameynaya laga rabaa. marka aniga yani meeshan waxaa gashanaa cost of goods sold. sidoo kalena meeshan ayada cost of goods sold gashanaa. waxaa rabaa meeshan labada account inay isbixiyaan oo isku baxaana rabaa. qofkii accounting yaqaan waa fahmi karaa, yani labadooda zero inay kusoo harto kan inay iska bixiyaan rabaa. sidoo kale meeshan hadda u imaano anaga hadda last unit cost ah haysana zero waa ma jiro. sidoo kale waxaan dadka u iibinaa u kirinaa 400. save ida then new ida. sidoo kale waxa labada sameeyna waxaa waaye description kan maadaama kii hore service ka dhigana kana description only ka dhiganayna. type meeshan ID waxaa ii gelisaa utility utility soo gaabay 001 electricity expense electricity cost ida electricity cost meesha stock ii ahayd. markaan waxaa ka bedelinaa, waxaa ka dhigaa description only. save ida. sidoo kale mid labaad rabaa inaad samaysto oo ah communication new ida communication 001 soo gaabay. tusaale camal telephone bill meesha description only yiri. save ida the new. sidoo kale midkan ugu dambeyso hadda meesha saan waxaa kusoo sameynay hal service ah iyo laba oo description only ah, hal dheeraa ku darsanaa oo ah labor. tusaale camal anaga shaqaalo inay noo joogaan alaabta iibino kasoo qaad inay tahay furniture iyo waxyaaba inaa iibino markii oo nalaga gato. shaqaalahayna shaqaalo kamid ah inay soo xirxiraan oo lacag kusoo baxdo. markaa rabna inaan xisaabino meeshaan ku samaysanaynaa furniture isoo gaabay 01 waxaa idhahdaa furniture installation. typekiisana waxaa ii dhigtaa labor iga dhig markaa maadaama shaqaale ay ku bixayso. marka akoonka oo GL akoonka saameynaysa wax kale maahan. meeshan other income iga dhig 4,000 iyo fiiri other income. sidoo kale meeshan kanna waxaa wax kale kama dhiganayo salary expense ka dhiganaa. meeshan gashanaa salary expense oo ismaysaa malina waa kana. meeshan ugu dambeeyana waxaa gashanaa cost of
cost of goods, cost of sale, laakiin ii samaysan cost of sale of cost of sale salary wages. account live expense aa samaysana meesha hata iguma jiro, ii samee 5,000 iyo 5,000 iyo no 5,100 wuu samaysnaa, waxaa dhigtaa 5,000 okay, waxa ay dhigtaa cost of sale salary and wages, save ida akoonkaas igu soo xir. meeshaan hadda u maano anaga waxaa kasoo qaadaa shaqaalaha inaan siina, yani shaqaalaha inaan siina $60 laakiin dadka wax loo qabtana $100 laga qaaday. then save ida listiga haddii aan fiirino meeshaan hadda saddex food oo ay samaysan oo stock item ah, labo description oo ay samaysan oo electricity cost iyo telephone bill ah, iyo sidoo kale hal service water warehouse rents iyo hal labor of financial installation. I think inaan fahnay casharkan qaybta hore la socday intaas kusoo gabagabeynaa.